maamulka gobolka Banaadir ayaa wiil yar oo in muddo ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho waxay u fududeeyeen helitaanka fiisa caafimaad si dalka dibadiisa loogu daaweeyo wiilkaasi. Wariyaheena magaalada Muqdisho Hiba Maxamed Nuur ayaa warkan inoo soo dirtay. maxamed cumar maxamed waa wiil yar oo ku xanuunsanayay muddo 7 sano ah degmada Aboondheere ee Muqdisho. waxa uu la xanuunsanayay xanuun ka hayay dhanka wadnaha. xanuunkaasi oo wiilkan yar uu ku dhashay waxa isbitaalada Muqdisho ay u sheegeen aabaha dhalay wiilkan yar Cumar Maxamed inaan wax looga qaban karin dalka gudahiisa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo ku booqday hoyga ay ka degan yihiin Muqdisho ayaa waxa uu gudoonsiiyay fiisa ay ku ambabixi doonaan isla markaana ay ku gaari doonaan dalka Turkiga si loogu soo dabiibo xaaladda caafimaad ee wiilkan yar. waa kan gudoomiyaha oo ka hadlaya. la qiyaasi karaa yani maanta awlaad adii aad dhashay oo aadan dalka gudihiisa wax uga qaban karin wali xaalad caafimaad oo wadnaha oo dalka dhan leeyahay wax looga qaban karo maanta waajib qof kasto saaran waa inuu ka qayb qaato in aan anaga isku gurmano wax alla wixii aan isku qaban karno isku qabanana waajibna saaran waxa ilaahay mahadiisa dadka xaafadda degan iyo gudoomiyaha degmada Boondheere iyo inta ilaahay naxariista siiyay ee garashada leh iyo dad badan oo daljirka dahsoona ilaahay uu ku abaal marinaya oo arintan wax badan ka soo qabtay ayna wargeliyaan in dibkaas uu jiro dalkan wax looga qaban waayo annaguna aan wuxuu ilaahayna garansiiyay aan qaban karno ku dadaalnay oo ay tahay maadaama dalka gudihiisa wax looga qaban waayo dalka dibadiisa la geeyo inaad u duceysaan oo aad garab istaagtaan. annaga waa garab istaagnay wixii waajibkeena ah waa ka soo baxnay laakiin idinkan waxa la idinkaga baahan inaad garab istaagtaan oo aad qofkaas walaalka ah duco iyo garab istaagiisana waa waajiban saaran sababtoo ah hadii anaga aan isku gurman cidno gurmanaysa malaha. sidoo kale waxa uu u mahadceliyay Cumar Maxamed oo ah aabaha dhalay wiilkan yar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid sida uu ula qaybsaday xaaladda caafimaad iyo dadaalada loogu jiro in wiilkan yar loogu qaado dalka Turkiga. waa kan Cumar Maxamed oo arintaasi ka hadlaya. qofka marka uu yahay qof aan waxba haysanin waalidna uu yahay qof uu ka xanuunsan yahay muddo 7 sano oo la rafaadayay waxa hubaala qofkii barnaamijkiisa u fuliyo waa farxad aan la soo koobi karin. waxa ila mid tahay adduunyada inta aan noolaay maalinkii ugu farxad badneed because cunugayga wuxuu rabaa mustaqbal wuxuu rabaa nolol wuxuu rabaa in sida caruurta caafimaadka qabta inuu ciyaarto wax u barto wadanka wax u qabto intaasoo raba. maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ku guda jireen dadaalo ay ku ogaanayaan dadka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir. Hiba Maxamed Nuur, Somali Cable, Muqdisho.